kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee aan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee dagal kasta. barnaamijkeenan xogtan waxaan ku soo gudbin doonaa dhowr arrimood ee ay ku soo kordhisay doorashada gabadha muslimka ah ee Tanzania loo doortay Samia Suluhu Hassan oo kitaabka Quraanka lagu dhaariyay. xog muhiim ah sababaha ay u qabsatay liiska wararka ee labadii maalin ugu dambeeyay ee dunida iyo dalalka islaamka ay ku soo kordhisay siyaasadda cusub iyo dawladda Soomaaliya oo war xasaasi ah soo saartay isbahaysiga ka dhanka dawladda ee Muqdisho laga sameeyay iyo kiiska badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa laga helay cudurka corona isagoo maalmo ka hor qaatay talaalka cudurka corona, taas oo walwal ka dhigaysa waxtarka talaalku uu leeyahay iyo xogo kale ayaad dhegeysan doontaan warbixinadeenan. xogaheenan ugu horeyntii safka hore ee wararka ayaa waxaa qabsatay gabadha islaamka ah ee loo doortay dalka Tanzania sababo dhowr ah oo ku cusub qaaradda Afrika. Samia Suluhu Hassan waa gabadhii ugu horeysay ee Tanzania madaxweyne ka noqota, waana gabadhii ugu horeysay ee muslima oo madaxweyne ka noqota Tanzania. Samia Suluhu waa gabadha kaliya ee madaxweyne ka ah Afrika, inkastoo Ethiopia ay leedahay madaxweyne gabadha ah. haddana Ethiopia madaxweynuhu waxa uu taagan yahay booska ra'iisul wasaaraha ama madaxweyne ku-xigeenka isagoon awood lahayn. Samia Suluhu Hassan waa qofka labaad ee ka soo jeeda Zanzibar oo Tanzania madaxweyne ka noqota, maadaama ay midoobeen Zanzibar iyo Tanzania oo la isku yiraahdo Jamhuuriyadda Midowday ee Tanzania. Samia Suluhu Hassan sidoo kale waa gabadha muslimka ee adduunka oo hogaamin doonta dal intiisa badan yahay Kiristaan, taas oo xiiso u sii yeeshay markii kitaabka Quraanka lagu dhaariyay. haweeneyda ugu horeysay ee taariikhda gashay inay noqoto madaxweyne Tanzania ah kadib geerida lama filaanka ah ee ku timi madaxweynihii hore ee Tanzania John Magufuli. Samia Hassan ayaa loo dhaariyay Jimcihii iyada oo gacanta ku haysa kitaabka Quraanka, waxayna dhaarta ka dhacday qasriga madaxtooyada ee ku yaala magaalada Dar es Salaam. waxaa dhaariyay xaakimka guud ee dalkaasi Ibrahim Juma. Samia gabadha islaamka oo ku xigeen u ahayd madaxweynaha geeriyooday Magufuli tan iyo sanadkii 2015. Samia Hassan oo 61 sano jir ah ayaa ka soo jeeda jasiiradda Zanzibar, waxayna dhammaysan doontaa muddo xileedka madaxweynaha geeriyooday oo ku eg ilaa iyo sanadka 2025 sida dastuurka dalkaasi uu qabo. waa haweeneydii ugu horeysay ee muslima abid ee madaxweyne ka noqota dal Afrikaana. dhaarinteedii ugu horeysay waxay ka soo muuqatay Dar es Salaam, halkaasi oo inta badani dadka ka soo qayb galay ay xidhnaayeen maskarooyin oo horey uu shaki u galiyay madaxweynihii ka horeeyay Tanzania John Magufuli. anigoo Samia Suluhu Hassan waxaan ballan qaadayaa inaan daacad u noqdo oo adeeco oo aan ilaaliyo dastuurka Tanzania, ayay tiri madaxweynaha cusub iyadoo dhaaranaysa ka hor xafiiska inta aysan la wareegin ee ciidamada aysan samayn dowlatus military iyo qaabilaadda madaafiicda. Samia Hassan Suluhu wax yar ayaa yaqaanay banaanka Tanzania ilaa ay ka soo muuqatay telefishinka dawladda habeenkii Arbacada si ay u shaaciso geerida Magufuli oo u geeriyooday xaalad wadna istaaga 3 toddobaad oo la yaab leh oo uu ka maqnaa aragtida dadweynaha Tanzania. su'aalo badan ayaa laga keenay sababta dhabta ah ee dhimashadiisa kadib markii warar badan la isla dhexmaray oo sheegaya in Magufuli uu u geeriyooday xanuunka COVID-19 oo uu takooray. hogaamiyaha mucaaradka ee ugu weyn Tanzania Tundu Lissu waxa uu ku adkeysanayay in ilaawareedyadiisu ay u sheegeen in Magufuli uu u geeriyooday xanuunka COVID-19. wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Kenya ayaa isbuucii la soo dhaafay wariyay in Magufuli uu ku jiray isbitaal ku yaal Nairobi. sidoo kale wargeyska ayaa muujiyay in isbuuc ka hor uu dhintay Magufuli. su'aasha ugu weyn ee dul saaran madaxweynaha cusub Samia waxay tahay ma keeni doontaa isbedel ku yimaada qaabka hogaamiyihii ka horeeyay. Magufuli waxa uu ahaa ninka ugu aftaansan qaaradda Afrika. COVID-19 maamulkiisu wuxuu joojiyay tirinta kiisaska coronavirus bishii Abriil ee sanadkii hore. tiraduna waxay ku sii jirtay 509 infection iyo
21 dhimasho ah waxna kuma kordhin. Magufuli ee aragtida ugu dambeysay waxay ahayd bishii February 27deedii wuxuu ka tagay dhaxal adag. Magufuli kadib markii uu weecday in cadaadis uu saaro mucaaradkiisa isla markaana saxaafadda uu mamnuuco iyo dhaqdhaqaaqayaasha hadalka xorta ah, halka uu diiday inuu qaado wax tallaabo ah oo ka dhana cudurka COVID-19. tallaabooyinkaasi oo hadda sugaya Saamiya inay la tacaasho. mucaaradka iyo ururada xuquuqda ayaa ku booriyay Saamiya Xasan inay bedesho wadadii hore ee join Magufuli. inta aan sii wadno barnaamijyada aan bilowno inaan furfurno bog cusub dalka oo dib loogu dhisayo midnimada qaranka, ixtiraamka xorriyadda, cadaaladda, ku dhaqanka sharciga, dimuqraadiyadda iyo horumarka ku salaysan dadka, ayuu yiri gudoomiyaha kooxda mucaaradka ah ee dalka Tanzania. wuxuuna ku booriyay Saamiya Xasan in ummadda ay u horseedo dib u heshiisiin. Saamiya ayaa durba wajihi doonta cadaadis horle oo kaga yimaada isla xisbigeedii gudaha, kuwaas oo xukuma sirdoonka iyo dhinacyada kale ee xasaasiga dawladda, waxayna isku dayi doonaan in hogaamiyaha go'aanadeeda iyo ajandaheeda uu raaco madaxweynihii ka horreeyay xisbigeeda. warbixinada kale ee dunidana, iyadoo xilligan dunidu ay tartan ugu jirto tallaalka cudurka corona, ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa laga helay fayraska corona 2 maalmood kadib markii uu qaatay tallaalka ka hortagga cudurka COVID-19, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Pakistan. waxaana la sheegay in hadda ra'iisul wasaaraha uu isku karantiilayo gurigiisa. Khan oo 68 sano jira waxa uu maalmihii ugu dambeeyay ka qayb galay kulamo ka dhacay dalka. cudurka COVID-19 ayaa haatan ku soo laba kacliyay Pakistan, iyadoo dalka laga diiwaan geliyay dhimashada 13,799 qof iyo kiisas gaadhaya 628,335 ruux. arrintani ayaa mugdi gelinaysa waxtarka cudurka corona tallaalkiisa ee dunidu ay qaadanayso. ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyay waday shirar joogto ah oo ay ka mid ahaayeen ka qaybgalka shirarka amniga ee lagu qabtay caasimadda Islamabad oo ay ka qayb galeen dad tiro badani. khudbadda uu ka jeediyay shirkaasi ayaa la arkayay isagoo wajiga xidhnayn afdaboolka, wuxuuna ka qayb galay kulan kale oo lagu daahfurayay mashruuc guriyeynta oo lagu sameynayo dadka saboolka ah. ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa la talaalay Khamiistii dalka Koonfur Aasiya oo ay ku nool yihiin 220 milyan. waxaa si aad ah ugu sii badanaya cudurka corona. Pakistan waxay talaalka bilowday 10kii bishii Maarso, iyada oo laga bilaabay dadka waayeelka kadib markii la arkay jawaab liidata shaqaalaha caafimaadka ee safka hore oo muujiyay walaacooda talaalka oo laga soo saaray dalka Shiinaha. talaalka Shiinaha iyo dalka Ruushka ayaa la ogolaaday in si degdeg ah loogu isticmaalo gudaha dalka Pakistan, balse waxay muujinayaan waxqabad la'aanta ka jawaabidda cudurkani. ugu dambeyntii warbixinadeenan wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuubakar Dube ayaa shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho, wuxuuna ka hadlay qodobo dhowr ah oo kala ah tallaabooyinka la qaadayo ee lagu dagaalamayo cudurka corona iyo arrinta labaad ee kiiska dacwadda badda. ugu horeyntii wasiir Dube ayaa sheegay in xayiraadda 2 toddobaad oo horey ay u soo rogeen goobaha waxbarashada dalka uu hadda waqtigeedu dhammaaday, balse mar kale ay dawladdu ay dib ugu celisay xayiraaddaasi 2 toddobaad oo kale. sidoo kale bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan baxda waxbarashada iyo dadka ka shaqeeya goobaha muhiimka ayuu ka dalbaday in ay istalaalaan, isagoo sheegay in 90 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir laga doonan karo talaalka. dhanka kale wasiir Dube ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay sababaha Kenya ay ugu andacoonayso inay uga hadhay dacwadii badda ee ka dhaxaysay Kenya iyo Soomaaliya. waxa uu sheegay in dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ku kalsoon yihiin wixii ka soo baxa maxkamadaasi ee la sugayo. dhanka kale wasiirka ayaa ka hadlay shir uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo oo uu sheegay in maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay ka qayb galaan, wuxuuna ku tilmaamay in shirkaasi uu socon doono muddo 2 maalmood laguna qaban doono xarunta Afisione. wasiirka ayaa sheegay in shirkaasi noqonayo mid lagu dhamaystiro heshiiskii 17 bisha Sebtembar iyadoo oo la adeegsanayo tallaabooyinka ka soo baxay shirkii Baydhabo. sidoo kale wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ayaa ka hadlay isbahaysiga badbaado qaran oo toddobaadkani ay sameeyeen
maamulada Puntland, Jubbaland iyo golaha mucaaradka ah iyo aqalka sare isagoo ku tilmaamay tallaabadaasi mid lagula dagaalamayo in doorasho ay dhacdo. Xogaheenan qaybtan waa naga intaan qaybaha kale idiin soo gudbin doono. Nabadgelyo.